halkan waa Guuleed TV magaalada Manchester waxaanu maanta halkan kula kulannay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye magaalada Manchester iyo Bolton Cabdisamed Xasan Saalax guri isagoo ka soo baxay shir ay albaabadu xidhnaayeen oo uu la yeeshay gudida mustambeedka xisbiga kulmiye magaalada Manchester iyo Bolton waa kan Cabdisamed ku soo dhaw Cabdisamed Guuleed TV عادي أبغى نسلام يا عادي يا ماركت يعني يردنا كل شقي ليسا تيفي قولت يبه وذاك تماركت كشقي ليسا أو عادي مختار باشا يا ماركت رجعنا اللي يردنا جروبهم كل صعود كل شقي لا يا مركا عادي أبغى نكون بليري حولا أو هيسان ومدة ماركتي غير مانشستر يوم مدة كلا سومالية دي يوم مدة سومالي لامب مركا عادي أبغى ماركتي أنا هم بليري هاي الشغل العاوة قبضتين أتكسب هذا عاوة caawa waxaanu ka soo baxnay shir maaragtay emergency oo iska xusbiga kulmiye laanta ka jirta Manchester ay lahaayeen waxaanu la kulannay gudida mustambeedka ee Manchester waxaanu qaada dhigaynay abaaraha ka jira dalkii ummadda aafiyay iyo sidii aanu gurmad degdeg ah aanu ugu samayn lahayn waxa kale oo jira oo aan isaguna meesha joogay oo aan ka maqnayn gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland Abdullahi Usman oo isaguna gudida mustambeedka maaragtay la socday oo maaragtay qabanqaabiyay oo shirka maaragtay isaguna qayb ka ahaa marka muhiimkaas buu ahaa shirku maanta ku saabsana xukuumadda kulmiye aad ka tirsan tahay ama doorsi inaad mustaqbal ka tirsanaatid way ku ugu dareystay in abaartii wax ka qabato oo dadkii oo dhimanaya doorasho doonaysa xaggee cod ka helaysaa u malaynaysa mar haddii ay saddex gobol ay dhibaato ka taagan tahay mukhtaaro taasi wax kolley horan anigu uma maqal imikana jadwalka kulmiye ama xukuumadda Somaliland laguma hayo gudoomiyaha Muuse Biixaa u dambeeyay oo wiigii u dambeeyay wuxuu maray gobolada bariga halkaas oo uu magaalo kastuu tagay Burqa iyo Oodweyne ayuu wuxuu ka bilaabay Oodweyne Burqo Qaynaba saas oo maray Laascaanood gobolada bariga oo dhan uu maray gobol kasta oo uu tago wuxuu bixiyay caawimada ama lacag ha noqoto ama raashin ha noqoto ama biyo ha noqotee intaba uu kaga qayb qaatay wuxuuna u taagan yahay inuu ummadda reer Somaliland naf iyo maalba dul dhigo waana ogtahay Muuse Biixi 20 sano ama 30 sano la soo dhaafay Somaliland buu joogay waligii dalka kama bixin markaa waa nin ummadda si dhiibliya ugu gurmada imkana gurmadkiibu ku jira kulmiyana ma rabo muu oran doorashada hal la galay wuxuu yiri arinta waxaan ku riixaynaa komishinka xaq u leh inay go'aan ka gaaraan wahayada Suuriya lama dhaafi karo markaa saasay maaragtay arrimaha kulmiye u socda gudoomiyaha kulmiye marka tiri gobolada barigu maray caawimoon raashin geynay wasiiro badan buu sii ka haysto waliba wasiirada ugu awoodda badnaa dawladda wasiirka madaxtooyada ka mid yahay sharciga uu baneeyay inuu ka haysto waa maxay madaxweyne wali noqon nasiib daro taasi watay mucaaradku dadka ku qaldaan ay yiraahdaan wasiirada la socday wasiiradu xusbiga kulmiye waa xusbi muxaafida waa xusbi doorashada ku guuleystay oo xusbiga kulmiye dawladda hadda jirta isaga ka dhalatay qasamna waxay u leeyihiin inay meel kasta xukuumadii ay u wada gurmadaan iyo xusbiga kulmiye marka wasiiradaasi waxay ahaayeen iyaga qudhoodu indhayn bay u bixeen laakiin Muuse Biixi si shakhsiyadu ku baxay oo dadka ugu gurmaday ma malaynaysaa inuu cod ka helayo Muuse Biixi gobolada bariga haddii doorashada waqtigeeda lagu qabto horta nasiib daro imika dalka waxa ka taagan abaar aad u ba'an mana arko kulli aniga iyo maaragtay dadka ila midaba doorasho xilli la qaban karo gobolada bariga dadku waa dhimadayaan xaaladda barigu maaragtay xaalad aad iyo aad u xunbay dadka barigu ku jiraan marka anigu waxaan qabaa roobooda amooyaan doorasho ma dhici karto bisha Maarch gudidii abaaruhu heer qaran ilaa hadda waxay fadhidaa Hargeysa goboladii bariga ma tegin xukuumadda aad taageertid iyo xisbiga taageertad ka mid gudoomiye ku-xigeenka Manchester aad ka tahay maxay gudidii abaaruhu u dhaafayday Hargeysa gobolada bariga u tegay Burcasar uga sameeysan
mukhtaaro taasi waa arinta dadka madaxufiya ay always ku doodaan guddida abaaruhu magaalo kasta oo gobolada bariga waxay ka sameeyeen guddidaas si khaas iyo si gaar ah ugu gudmada dadka abaaruhu hayaan abaartuna abaar baaxad iyagu tagay waa heer qaranku iyo xilliyada kamida way tageen baan u maleeyaa warbaahinta iyo maaragtay meel kasta waa laga sheegay iminkana way tagayaan maalin kastana way u taagayeen inay tagaan xukuumadda kulmiye ee taageerta iyo xisbiga kulmiyaba siinaay markuu mucaaradka waxay sheegeen inay musuqmaasuq iyo cadaalad waxba la dagaalamayaan maxay ka qabteen musuqmaasuqaad malaynaysa haddaan qodobkaas aan isyar dul taago waxaan u malaynayaa mukhtaarow dee inagu qurbajoog baynu nahay markaan qurbajoog leenahay wasaydada iyona warka kala soconnaa iyo tiifiyada somalilan ama xusbiga kulmiya ama xukuumadda hadda jirtaa waxay qaatay ilaa iyo ingiriiskii ilaa xilligii dowladdii siyaad barre ilaa iyo xukuumadihii ku kala dambeeyey somalilan iyo dowladdii soomaaliya laysku odhan jiray iyo xilligii ingiriiska gumaysigaba waddada ceerigaabo loo qumi waayey marka haddii musuqmaasuq jiro waddada ceerigaabo lama dhiseen oo waxaanu hay'ada ama looma dhiseen maaragtay guryaha ama wasaaradaha waa maxay sababta kulmiye uu taajiriinta cashuurta uga qaadi waayo faqiirkana cashuurta uga qaado taas waxaan u malaynayaa mukhtaarow halkaasi waxa weeye qodobkii hore un bay daba socotaa kulmiye cid kasta oo cashuurta ku waajibto waa ka qaada ma lamana odhan karo taajiriinta u daayey waa waxay mucaaradku ay ku marmarsiyoodaan markaa xusbiga ama waxaan leeyahay dawladdu way ka qaadaa cid kasta oo cashuurta ku waajibtaba waa xaqiiqad leedahay taas waa xaqiiqo wey xisbiga kulmiye ee UK xisbiga kulmiye ee UK wuxuu marayaa maanta halkii abid ugu xumayd kala yaacib uu ku dhow yahay magaalo walba waa la isku haystaa maxay sababtu mukhtaarow ma odhan karo anigu xusbiga kulmiya UK wuxuu marayaa halkii ugu liitay ma maraayo xusbiga kulmiya waa xusbiga ugu taageerada badan UK markaynu dhahno shanta qaaradood adduunka inta Soomaaliland ku nooshahayba waa xusbiga ugu taageerada badan leh haddaad leedahay cillado farsamaa jira taasi waa gaar weeye laakiin xusbiga kulmiye waa xusbi muxaafida waa xusbi in badan soo halgamay waa xusbi haddana u taagan inuu doorashada ku guulaysto laakiin way jiraan caqabado UK ka jira kuwaasna lama odhan karo waa kulmiye waxa weeye guddidii fulinta ahayd ee aanu berigii dhawey dooranay ayaan ahayn oo annagu aanaan dooranay guddi si gaara loo soo sameeyey ahaydoo si farsamo xun loo soo sameeyey guddigaasaa dadku ka cabanayaan oo ay ka jiraan dhaliilo gudahooda laakiin kulmiya waa xusbiga ugu taageerada badan leh waanuna ku rajo weynahay haddii la kordhiyey iyo haddii hadda la galaba inaanu doorashada ku guulaysan doono magaalo kasta oo ka tirsan UK waa la isku haystaa weliba dhulkii ugu taageerada badnaa waqtigii siilaayay East London oo ahayd meeshii ugu taageerada badnayd ee Sinaai laga soo saaray Cardiff Bristol Manchester intaba waa la isku haystaa waxa leeyahay khilaafkaas ma jiro waan kuu sheegay cilad farsamaa jirta oo ay ka timi guddida fulinta 19 guddiya baa la doortay guddidaasi waxay noqdeen guddida qayb ka mid ah way shaqaysaa guddi fadhiida bay noqotay guddi waxay noqotay ku soo kordhisay xusbiga kulmiya wuxuuna caado u lahayn oo qabiyaalad istabamaris iyo musuqmaasuq waxaan oran lahaa halkaad leedahay musuqmaasuqa hargeysa ka jira ama xagaa ka jira qoladan guddida noogu horeysay wax kulmiye ah wax musuqmaasuqda oo iyagu cadaan bay waxooda iskaga qaataan marka ciladu waxay ka jirtaa guddida fulintii laakiin UK wax cilado ka jirta ma jirto boqolkiiba 80 haddaad imika maqaaxiya dhex martid dadku kulmiye wada taageersan yihiin imikana haddii la kordhiyo awal hore gacantaanu ka ilaalinayna waxaanu islahayn 3 bilood sidaa qarbaqarbada lagu galay hadda gacantaanu gelinaynaa wax badan baanu xusbiga ka bedeli doonaa insha Allah guddida fulinta ee kulmiye waxa ay yimaadeen magaalada Manchester idinkoo laba guruuba oo dadku dhan og yahay labadiina guruub oo la soo xiriireen labadiina guruub oo la wada hadleen laba xafladood bad kala qabsateen maxay yimaadeen maxay xalay keeneen niyo guddidaasi horta guddi cilad farsamo ku dhacday bay ahayd waa ogtoo guddoomiyihii muu marayn UK guddoomiye ku-xigeenkiina muu marayn waxaa lagu soo guddidaasi ay ku soo baxday si qabiilaysan markii hore rag baa waxay ku soo baxeen si qabiilaysan oo ay ahayd reer baa reer soo dhaweydaya markaanan aan ku yar dul maro marka xilligaa kadibna kuwii ugu dhaleecada badnaa ee dadku ay ka soo horjeedeen ayaa ka soo daba baxay marka guddidaasi ma ahayn guddi kulmiyana matasha
guddida fulintana matasha guddigay ahaayeen iyagu isu soo dhaweynaya annaguna maanaan arag siday noola kulmi lahaayeen reeraysniidna waa ka diid annagu garabkayga waa ka diidna waa ka diid shirkii Birmingham ka dhacay ugu dambeeyay ma ka qayb gasheen laamaha UK ma kamaanaan qayb galay waa maxay sababta uga qayb gali weydeen sababta aan uga qayb gali weynay horta Birmingham magaalada la yiraahdaa waa magaalo dhisan sida runtii dadka reer Birmingham waa dad sharaf leh waa dad xusbiga in badan u soo halgamay waa dad maaragtay dhisan oo aan magaaladooda khilaaf kama jiro marka annagu waxaan uga qayb gali weynay ciladii ka dhacday Manchester oo guddida fulintu ay sameeyeen awgeed baan annagu uga gaabsanay qodobana kama soo bixin shirkaas sidiisaba qodobana kama soo bixin khilaafkii Manchester iyo London iyo Cardiff iyo Birmingham waxa la Birmingham lahayn Sheffield iyo Liverpool iyo meel kasta ka jiray ayaa halka la tagay deerna sidii baa lagu kala tagay marka waxaan oran lahaa oo kulli anigu haddaan nahay xusbiga kulmiye annaga arinta ka baaraan degayna xusbigana waxaan u dhiibi doonaa dad hogaamin kara xusbiga dhaca badan baa ku soo baxay 8 sano mucaarad ahaa dad baa naftoodii iyo maalkoodiiba u huray waa xusbiga quri aanu kaga guureyno Soomaaliland oo dhan aanu doonayno inaanu qabyaalada kaga tirtirro waa xusbiga quri doonayo inaanu kaga tirtirro musuqmaasuqa marka nin Ingiriiska joogo anagu waxaan naanaa qolyaha musuqmaasuqa la soo galay kulmiyaha cusub baan naanaa kulmiyaha cusub uma joojideyno dhag uma dhigayno xusbigu sidii lagu yaqaanay imika yahay midmarkana soo dhex galayna si dhow aan uga takhalusi doon ma guddida fulinta khilaaf dhex yaala mise gudoomiyaha laftiisa guddida fulinta khilaaf dhex yaala gudoomiyaha iyo guddida fulinta khilaaf baa dhex yaala ugu yaraan 3 kursi ay ku kala fadhiyaan mana wada shaqeeyaan mana meteli karaan kulmiyana ma meteli karaan xukuumadda ma meteli karaan waa guddi fadhiga laakiin qayb shaqeysa miyad wali aragtay musabbixi habeenkii la dhan joogtaan muqtaar u maleeyaa adigoo ma aragtay habeenkaas aan u maleeyaa inaad wax badan la socotay guddida fulinta guddidii ugu sarsareysay kayaday ku yimidayeen meeshii musabbixi fadhiyay oo dadka shanshagni kaga siidayeen marka guddidaasi ma noqon karto guddi mustaqbal u soo wada kulmiye dadna isku wadi karta xusbiga kulmiye waa xusbi hambala وجد الله هرصده ومطر دنبا اسكو timaada gudoomiye aan ama gudoomiye aan laba qof isku keen karin ama guddi aan laba qof isku keen karin iyagii guriga iska dhex jira ma mitili karaan kulmiye gudoomiyaha UK Mr Xariir wuxuu sheegay inuu isagu dhaqaale doonaya habeenkii aad tagteen xafladii musabbix wuxuu idinku yiri £1 hadaad haysan keena isagu ma dhaqaale dama muxuu khilaafka maadaama gudoomiye khilaafku dhameeyay waay labadii group niyo taas iyadoo ay taasi jirto oo dhowr siyaabood loo dhigi karo xagga siyaasadda marka laga eego haddana xariir anigu waxaan ku dhaliilaa go'aan qaadasho la yiraahdo ama dad isku wadisa ayuuna lahayn marka way jirtaa xagga dhaqaalaha xusbiga maalmihii u dambeeyay ee kulmiye doorashada galayay qasnada UK waa buuxday dhowr kun oo qof baan ka tagay UK hadda qof ka tagaya ma jiro waayo qof kasta wuxuu ka qancay guddida meesha joogta iyo sida u shaqeynaysa marka kulmiye karaamu mudan yahay waxaanu nahay dad in badan soo halgamay waxaanu dad sii jiri doona waxaanu nahay dad geeska Afrikaba inay qabyaalada ka tirtiraan iyo musuqmaasuqa ayaa xusbigayga dastuurkiisu yahay haddii guddida fulintu ay xalkiina xalliyi kari weyday mustanbeedkii kulmiye ma mustanbeed kulmiye sida ka wadani ama ka cid ma jiraan mustanbeed kulmiye oo arinta garamaan jira mustanbeedku waxa jira mustanbeed karaamo leh intaan ka qabo waa 7 aan maleeyaa mise 7 inay yihiin baan maleeyaa wali waa ku jiraan arrimaha khilaafkana way la socdaan waxaan u maleeyaa oo halkan horta aan su'aal uga gudbinayaa laamaha gacan ku rimiska magaalo kasta laga sameeyo la dhanbaa laga sameeyay gudoomiyaha hadii ciidi taageeri weydo ama jilcsanaantiisa ama guddida ciidi taageeri weydo laan jirta in laan lagu dur sameeyo arrada kama dhacdo marka waxaan leenahay cid la caburin karaana ma jirto cid kulmiye laga leeyahay ma jirto kulmiye waa la wada leeyahay ninka aan waxba qabanayn baana wadada ku qulqulaya marka arintaasi arin socodaysa maaha waxana weeyaan go'aamo adagna waa ka soo saareen kulmiye London way ka soo xidhanteen marka runta la sheego xafiisadii London way ka soo xidhanteen gudoomiye imka tuulooyinka la soo qabtaa shirarka maadaama khilaaf baan London ka taagan yahay وما يسوون إذا لصقوا دنتا مانشستر بيرمنغهام ولصقوا دنتا يشوف ما هي الباب المختار ونقما يسوحوا من waxaan u maleeyaa adigu waxaan u maleeyaa qoliya naga soo horjeeday laakiin ana kula kaftamay albaabadu naqama yisoo min laakiin oo la kala jira waxa weeye qofka haddaan cidi taageersanayn oo guddida aan cidi doonin
waad ogeyd baan ma yidhi xafladdii la dhanaynu tagnay iyo xaflad kale oo iyaduna magaalo kale ka dhacaysay waxaa la soo karaystay midhaata 12 security oo ilaalinayay dadkaasi kulmiyaa la kala ilaalinayay kulmiyaha UK ayaa la kala ilaalinayay kaadharka kulmiye membershipka qof baa iibsaday xogayuu ma hayo xogayaa kulmiye ma hayo qof baa iibsaday dukaankiisa ku samaysto oo lacagta ka qaaday marka ciladuhu waxay ka jiraan gudida fulinta laakiin meel laga soo xulantina ma jirto la dhanna annaga ugu dad badan Manchester annaga ugu dad badan Liverpool annaga ugu dad badan fariinta aad faraysaa gudida fulinta inay ku dhageystaan laga yaabo iyo golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Hargeysa iyo ka UK iyo gudida mustambeedka waa maxay fariinta aad faraysaa Gulay TV maanta niyo fariinta faraya horta reer kulmiye iyo reer Somaliland iyo dhammaan reer Somaliland aad baan u salaamaya si karaama ku jirto marka labaad waxaan farayaa reer kulmiye guul iyo gobonimo isku ognahay waa guulaysadayna halkeeda looga soo wada jeedo kulmiyana waxaan farayaa oo aan dhammaan madaxdiisa sarsare meel joogtaba aan farayaa cid kasto aan shaqaydeyn hal lagu bedelo cid shaqaydeys ayaa waxaan ku soo gabagabeynay wareysiga aan ka qaadnay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye magaalada Manchester iyo Bolton Cabdi Samed Xasan Saalax Guri waan kula kulannay isagoo mustambeedka xisbiga kulmiye magaalada Manchester la lahaa shir albaabadu xiran yihiin waa bahweynta Gulay TV oo aad ka dhageysataan dacalada adduunka meel kasta aad joogtaan anigoo Mukhtaar Baashe Maxamuud ayaa idin soo jeedinayay والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.